wasiirka wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa ka hadlay arrimo ku aadan shirka golaha wada-tashiga qaran ee ka socda gudaha magaalada Muqdisho kaas oo ay ka maqan tahay Puntland oo weli khilaaf kala dhexeeyo dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa ugu horreyntii weerar afka ah ku qaaday dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheikh isagoo ku eedeeyay inuu wado gacan bidixeyn. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday shirka haatan ka socda magaalada Muqdisho wuxuuna tilmaamay in waxba aysan ka soo bixi doonin sida uu hadalka u dhigay. Intii uu Xasan xilka ku soo noqday waxaa iska socday talada gacan bidixda ah oo aan waxba ka soo baxayn odayaal sheekaystay waayay ayaa uu yiri wasiirka warfaafinta. Waxaana kale oo uu tilmaamay inay doonayaan in marka hore la qabto wadahadalo dhab ah oo lagu dhameynayo khilaafaadka jira si looga gudbo xaaladda adag ee taagan. Annagu waxaan taaganahay si caafimaad qabta ha loo hadlo. Wadaadada xaggaas joogana waxay rabaan wax lala cararayo oo dadka kale aan la ogolayn ayaa uu yiri Maxamuud Caydiid Dirir. Wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan quseyn dhammaan qodobada ka soo baxa shirka golaha wada-tashiga qaran maadaama ay iyagu ka maqan yihiin. Waxa ka soo baxa shirkaas nama quseeyo ninkii wacday ayuu taal annaga wax shaqo ah kuma lihin ayuu ku sii daray wasiirku. Sidoo kale wuxuu sii raaciyay waxaan doonaynaa dowlad Soomaaliyeed oo taabaqaada oo federaal ah loona siman yahay. Puntland ayaa si weyn uga hortimid wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah oo ay horey ugu dhaqaaqday Villa Soomaaliya ayna ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Xuseen Maxamed Sigane, Som 365 Channel, Muqdisho.